بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نور دقل مانتا إيقو الرئيس. meel kasta oo qof Soomaali ah oo istaagay oo shabaab yac iska yirina anigu inaan tagaan diyaar ah meesha doona ku yaal Jubbaland ha jiro ama Puntland ha jiro ama inta u dhaxaysa ku jire dawlad goboleedyada iyo deegaanada dhan meel walba maalin aan tagayaa dadka iska xoreeyay shabaab inaan dhaho wadadii saxdeeda qaadeen inta dhiman dhameystir insha Allah maalin dhaweyto magaalada Wisil waxaan ka sheegay markaas waxa ii dhawaa geedkan geedjiniga la yiraahdo geedjiniga sida u faafo aragteen ridi cunta muxuu ahaay mirihiisa haday qaaday meelaha ku digoto waa meesha ka soo baxa shabaab waa sidaas oo kale qof dadkan ka tirsan hadduu wili shabaab ku dambeeyo waa soo cifaa waa imaana shabaab oo socdo noqaa wuxuu waa fikir qofku inuu fikirka ka tanasulo iyo in loo dilo walax ka dhaxeeya malaha hadduu ka tanasulo wiil Soomaaliyeed oo ahal oo qaraabo ah waay hadduu ka tanasuli waayo waa saan hor u sheegay waa cadow Soomaaliyada maanta joogta ee Soomaalida ah ee afka Soomaaliga ku hashay dirka Soomaaliga leh hal cadow ay leeyihiin meel kastoo ay joogaan cadowgaasuna waa shabaab reer hebel aan cadow noo ahayn reer hebel kalaan cadow noo ahayn dawlad hebel iyo maxaan ku raad dad kale oo dawlado kale joogaan cadow noo ahayn maanta Soomaaliyada joogta shabaab cadow u ah waana qirteen waa sheegteen wixii dhacay oo dhan khayr Allah si adeerkan hadda maqlaaya dhahayo waxa oon soo maqalna waxa ugu xumaay naagtaada soo baxday keen wixii diintu nafartay in loo dhinto sawma cirdigii wax sharaftii karaamadii in loo dhinto diintu ay nafartay soo kamid ma nimankaas dadnimo male oo diin male oo ehel male oo qaraabo male waa bahaliyay oo dadka diiranayo diirata oo wixii ku reeba aqligana ku reebi maayaan xoolana ku reebi maayaan marka inaad inta adkaysan weydeen aad dibkoodii fahamteen aad u qaadateen qalabkiina oo aad iska raacdayseen karaamo iyo cizi horta maanta idinku horeysa deeliira meeshii aad mujtamaca Soomaalida iyo dadka deegaanka iyo qolada iyo qaraabada aad ka tirsantiin uga jiri jirteen maanta aad ku soo noqoteen horta oo joogtaan weligiina dad macna leh oo dadka muxuu dhaxdiisana taariikh ku leh oo waliba colaad iyo xumaan haday timaadeen wax la iska dhiciyo waliba taariikh gaar ah loo maxaan ku raadayay la garanayo oo murti badani hore loogu sheegay ayaa tihiin nimanku waxay galaan male waxay gudaan male waa baahalo yar yar oo dadka beenbeen iyo arxan darrada inta dadka tuseenay ku haystaan xoog iyo xoolo iyo aqli ku haystaan male waa ka tiro badanay waa ka xoog badanay waa ka xoolo badanay waana ka dhinac walbaan uga badanay maanta sidaad u sheegtaan waa dib dib loo arkmaa waxaan rabaa wixii wanaagsan in la isaga daydaa fiican wixii xunna aan la isaga dayan reerka walaalaha ah ee maxamed muuse la yiraahay meeshan degan ee ka dheereen sida ay yeeleen la idinka rabaa shabaab ehel male qaraabo male abti male adeer male eedda male habar yar wax uu leeyahay male kuwa hadda la tilmaamayo zakada qaadi jiro qaarna saan dhahayo hadda uu sheekhu sheegay iyo kuwa abaanku tilmaamay iyo kuwa aad wada ogtiin oo la soo joogteen waa wiilashiina waa taqaaniin qaarkood ehel idimaha ogaada intay aaminsan yihiin fa shabaabnimada intay aaminsan yihiin iska soo qabta dawladda ku soo sallima dawladda maareynayso haynayso maalintii la xaqiijiyo oo lagu qanco oo la ogaado fikirka shabaabnimada inuu ka tanasulayna dawladda waxay u qabanay wiilkeeni waaye dadka inuu noolaado oo si fiican u noolaadaan kaalmo lagu siina laakiin inta uu fikirka xambaarsan yahay oo simbat u ahaayo oo meeshuu taga baxan taxta beeshan shabaab ku fiicnaa oo leeyahay yoona ku dhuumanin biriyo maanta war haduu joogo biriyo soo wara wato soo gala yaani noo dhuuman nimankaas yaanan qaraabaysan waa ogtihiin waa la socotiin niman shabaab oo waalidkood dilay walaalkood dilay adeerkood dilay abtigood dilay waa la yaqaan taariikhda caamwa adeerkood dilay asigoo waliba mansab weyn dawladda ka haayo
oo adeer waa irdaada laga celcelina war ii dhaaf wuxuu ahaa saad u celiseen inta yiri sariirti inta qaday sariirtiisa soo jiifo inta kortimid isku qarxisay gabaray ahayd wali isku qarxisay allah u naxariisto asaguna markaas gabartiisay ahayd tiisina waa dhamaato meesha qadarti rabbi meesha ku haysatay laakiin gabadhayaan laga qashqashaaday hal ii dhaafo adeer mugitir walaalkiisa dhalay adeer fog oo maxaan ku raadayay adeer koreed amaaha nimanku waxay muddadaas dheer noogu daaheen waxay ahaydeen ehel lagama maarmo oo diintaaba nafartay inaan ehelka soo dhaweyno muxuu ahay soo dhaqaalaysan laakiin qabiilkay iska qabiil ma leh annagu inaan marka qabiil yeelano ayaguna qabiil yeelan waayaan waa waxay noo dul joogeen dhowr iyo 10 sano war shabaab waa tuug waa khaa'in waa diin laawe waa dad laawe waxuu yahay male kuwa waxaa jira marka ehel noo ah laakiin aan shabaabka ama ficiladii shabaabka leh kuwa jidgooyada dhigta ee dadka masaafurka farqahooda ka furta waxa ay wataan kuwa maxaan ku raadin inta dheelmada qorgiisa qaatay fidnada soo kiciya nin soo dila fidnadu waa hurdaa ninkii kicina nacalada ku dhacday fidnada soo cawamadow inta baxo qorgiisa qaatay nin meel jooga qac qor ku soo dhahay maanta dawladdu arrimahaas oo dhan waa u kala cad yihiin shak uga jiraan jidgooyada waa ka hadlaynaa deegaankan ma nimid hadda Soomaali horta ogaada jidgooyo meel ay ku hartay deegaankaana ka jirto hiiraan tagnay galgaduudaan tagnay waxaan tagnay mudugaan tagnay meel isbaaro ay taalo deegaanadaasi ma jiro ceeb oo kama heraan waaye in dadkan sharafta badan leh oo dhiigooda iyo sharaftoodii karaamadooda u soo baxay inay ilaashadaan diinkooda iyo dadnimadooda in tuug xumo muxuu ahay soo meesha yimaado reer hebelna way aan dhahan reer hebel maaha waa tuug reer hebel maaha qaraabo maaha ehel maaha waa tuug qaadicu dariiqna diinta waxay ka tiri waa la wada yaqaanaa culamadii waa fadhidaa qaadicu dariiq diinta waxay ka tiri waa ciqaabtiisa intay la egtahay waa aragteen sida loo weynay ninka jidka isbaarada u taallaahay waa qaadicu dariiq waa shabaab kalkaale shabaab iyo shabaab kalkaalana waxba iskuma kahayn dhammaan qof kasta oo dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee sharafta badan dhibaayahay waa cadow waana la iska dhicinaa ama shabaabnimo ha sheegto ama isbaara ha dhigto hadduu ehelkaaga yahay hadduu qof kale ehelkiisa yahay hadduu ciidan yahay hadduu meel kale ka tirsan yahay waa tuugna waa mas gogasha lama gasho karo waa iska dhicinaynaa dawladduna tallaabooyin cadcaday ka qaaday dadku xamarsay uga soo baxaan nuur dugla ayagoo nabadahoo maxaan ku iraahday ama heesaaya ama dikrinaya inay yimaadinaan rabna inta hadduu ka baxo xamar aado dhaxda muxuu ahay sahayda yartaa dhaxmaa lagaaga fura doonaa telefoonka ma dhax lagaaga qaada doonaa muxuu ahay gabadhu talow adoo nabad ama gaari doontaa meeshii mise baabuurka lagaala degi doonaa ayadoon islahayn inay jidkaas marto oo ay meeshay rabta nabad ku tagtaan rabnaa waxaan u soconnaa hadafka aan u soconno inaan gaarno kaas waay waxaa soo haray arrinta meeshaan laga jeediyey oo labada codsi ugu dhow dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed istaagay ee shabaab u istaago min raas gambooni ilaa raas casayr ku nool oo dawladda ay leeyihiin ay dawladda taag daran tabar daran hadda soo koraysa ay tahay wax walbo baahida ay ahaayeen dawladda qoryahan idima sii karin qoryihiina soo qaadateen bannaanka la timaada awalna xoolahaad ku ilaashin jirteen dugaagaad isaga dhici jirteen tuugga socdo muxuu ahay geela muxuu ahay dhacayaad isaga dhici jirteen maantana cadowga isaga dhiciseen dawladdu wixii ay ballan qaaday waxay ahayd rasaas inay keento kii dhaawacmana inay qaado oo ay daaweyso rasaas horena waa idiin soo gaartay haddana waa idiin soo gaaray rasaas la'aan dagaalka uga hari maysin haddii alla yidhaah ugamana gaabinaysin haddii alla yidhaah kan qaabta daranoo rasaasa dayacayana adinkaa haba yaqaano yac iska dhihi karaba ciidanka madaxdiisa waxaan weliba aad iyo aad u faraya in mar walba la jeegareeyo ma aha kulli inay wada xun yihiin halka xun si looga dhaxelo
in la jaagara war hebelow 30 xabadood oo risaas ahaan daraatii ku horreysay ku siibay dagaal dhammaanaan gelina 20 xabo maxaa waaysa aawa 10 kale in la dhihi karaan rabnaa saas mugay timaad isla xisaabtan waa isla xisaabtan la'aan adduunyadana ma socoto meel lama tagto ilaahayna uunkiisa isla xisaabtan buu ku saleeyabo waajibaa lagu siiyey ilaahay ku siiyey waajibka haddaad ka bixi wayso waa lagu xisaabtama maantaad wanaag siisana ajaraa lagu qoraa maantaad xumaan samaysana waa lagu qoraa xumaantaada isla xisaabtan la'aan adduunyadu ma soco karto ma noolaan karto ma jiri karto horaana loo yiri qoonsin siman ma liibaano haddaan dad wada siman oo wariyaa iga taga wariyaa is wada dhahaya aan dad ismaqlaayo kala dambeeyo oo is dhageysanaya annaan ahayn ma liibaanayno abwaankii halka soo istaagay iyo sheekhiiba khayr allah siiyee xigmad aad u weynay ka hadleen war annaga ummadda soomaaliyeedaan nahay meel kastana waa ka sheegaa intana waa ka sheegaa war annaga 1000 sano ka hor kasii horaan diinta islaamka aan qaadannay seef iyo dil iyo karbaash iyo xabad kuma qaadanin nalaguma khasbin annagaa qaadannay rabitaankeenna iyo fahamkeenna aan ku qaadanay 1000 sano ka badanaan nahay abka jad yaan nahay muslimiin wiil 25 sano jiro ama 20 sano jiro maanta inta yimaado wixii hore muxuu ahaay diin islaamka wada haysatay islaam ma ahayn iska dhiga hadda nin walba muxuu ahaay naagtii 10 cunug u dhashay lagu mehrina tawxiidka loo qabaa soo qubaysa hadda tawxiidka lagu qabaa ilmihii hore dhashay wax kama jiraan hadda muxuu ahaay lagu mehraa war waxaas intay naga soo galeen ilaahay ku daari annaga ummad 100% muslim hatta aqaliyad minority kuwa yar kuwa laga tira badan yahay oo muslimiin ahayn hatta ma qabno 100% adduunyada dad badan oo muslim iyo kristaan iyo kuwa diin laawayaal wax isugu jira jooga 100% ummad muslimiin ah oo muslimiina aadan sunna iyo shaafici aan kala waxa sunna iyo shiica aan kala ahayn ee kulligood sunniyiin ah ee haddana dhammaantood شافعيين او ان هدنا حتى مذهبتهم شرفت له بدنو جرتا ان كو كلا دوانين شافعي ودا مذهب كودو ياه war waxa noo dhimanoona loo sheegay maxay yihiin waxna loo sheegayo noo dhiman ma jiraan waa cilmi barasho ayadana waxay la meel lagu bartay leedahay waana baranayna nimankaasi waxa ay keenaan sidaas aniga aanan go'aan uga gaaray sideedaba inaan diin ahayn waxay noo keeneen diin nooma keenin la'aana diin la'aana ma hayn adoo biyo hadda ka soo rogan ninkii maanta oo biyo kugu qirqiraa ku yira xataa biyuhu waa wax fiican war anaga diin la'aana ma hayso orda meelaha diin la'aantu ka jirta aad haday run idinka tahay waxa hadii kalena ma bahaysin wax haysin wax runa ma ahana naga daaya waayo anaga muxuu ahay waxaan joogo dagaankan qiimaha badanna sida loo sheegay nimankaasi dhowr iyo 10 sano joogay inay xoola ka qaataan iyo inay haday heli karaan xoog ka qaataan iyo inay dadka cabsi geliyaan waxaan ayn u soo kordhin hadii meel gabdho ku umulaan aanu lahayn oo ceel biyo aanu lahayn oo maxaan ku iraadaayay iskool yar oo ilmuhu ay wax ku bartaan aanu lahayn oo dugsidii quraanka wax kale iska daayay ay xidheen faham kale oo nimankaas in laga qaato maanta aan u baahannahay oo dhiman ma jira u malaynaya waa ballan annaga dadka qof dawlad kasta oo caalam ku jirta dadka qof waxna uma sii karto umana qanci karto umana waxa baahideedana uma tiri karto laakiin waxa jamaaciga oo idinka dhaxayaan ka shaqeynayna waa ballan ilaahi magaaladan inay ceelna hesho iskoolna hesho ha u yaraada hadduu doono qol ha aad ama geedkaas quraca hoostiisa ha ahaadee meel ilmaha wax lagu baro bar caafimaado iyo gabdhaha ku umulaan oo ilmahana lagu tallaalo inay hesho waa ballan magaalo kastoo soomaaliyeed oo intaanoo qoys oo soomaali ah ay ku nool yihiinna waa sida magaalada kor markaan soo degaynaan arkayna magaalo weyn waay way mudan tahay intaas inay yeeshaan xasan sheekh maxamuud intuu madaxweyne yahay ilaahay idinkiis intaas waad yeelanaysaa inaad dhaqaalaysataan ood wax ku sii darsataan
oo iskoolka hadduu qol iyo laba qol yahay 3 iyo 4 qol aad idinku ka sii dhigataan laana shabaabna waa raacdaynaynaa ganacsigu waa furmaa beeruhu ilaahay idinkiis roobku waa da'a ilaahay idinkiis dadkaani dhaqaalay helayaan dhaqaalihiinna waxa idinka dhaxeeya inaad ka fikirtaan dawladduna waxa idinka dhaxeeya ka fikiray guri ku dhismayso labis gaar ku siimayso gurigaaga ku biilmayso markii baahi jirto gurmad yimaado waa goonigeeda laakiin waxa idinka dhaxeeyo oo dadkoo dhan nin keligiis iskool gooni u yeelan kara male nin keligiis isbitaal gooni u yeelan kara male nin keligiis ceel biyaa inta yeesho ceelkaasi dadku ka dhaxeeya dhihi kara male dawladdu waxa ay jid nin u fali kara ummadda male dawladdu waxa meeshaasaan ka bilaabaynaa ilaa aan gaarno dhaba weyn oo laamiyo inta ordaayo inta u sii socdo ilaa aan gaarno meeshaasaan ka bilaabaynaa dawladdu waana sii soconay haddii alla sida uu gudoomiyaha gobolka uu sheegay guusheennu ma aha inaan nuur dugla ka raacdayno shabaab guusheennu waxa waaye in shabaab Soomaaliya laga waayo meel kasta oo shabaab joogaad ciidan u tihiin una ahaan doontaan haddii alla yidhaah oo dhul Soomaaliyeed maanta dalka abaaraha ka dhacay sida hadda uu sheegay intaasoo daaw 4 sano muxuu beeruhu ma bixino lama soo goosan waa ta la leeyahay alxamdulillah dhulku hadda waa cagaaran yahay xooluhu waa dhaqan yihiin inta dhiman Allah noo dhameystiro rab khayr qaba Allah keenan leena waa duceynaynaa maalin dhaweeyta raashin mucaawina ayar waa la keenay berrina insha Allah iyo berri dambana waa la keeni doonaa waa soo socdaa sida wasiirku uu tilmaamay raashin kale kadibna uu imaan doonaa intaba dawladda ay waxaydo ama caalamka inta u qayshato waxaan ku fil wixina dawladna looga dhigta waaye caalamku wuxuu keenay in ay soo gaarsiino ayadana waa dhacay haddii alla yiraa waa laakiin de biyo gacmahaaga sacabadaada waa ka beerahana xoolaha aan dhaqaalaysanay iyo beeraha aan falanayno iyo cidaana waxaan u maleynaa kalluumaysato ma qabtaan jaalaha laakiin haye maya magacaas fiiri waxaana lagu dilay waaye oo dib noo dhigay kii sancada ka shaqeynaaye ee birta noo tusaayey fiiri ninkaan tumaalka u bixinay geedka fadhiya naarsimaha leh iyo qoragaa ninka soo sameexays dhamaan kana birow ka soo shaqeey kaasna birow ka shaqeeyay kana waa injineer iyo waa nin magaciisa waa nin qaali aan leenahay kaasna waa tumaalkii aan leenahay Soomaa warkii birta sadceynaya haddaan waa liitaa dhahno oo kii maxaan ku iraahdaa badda ka shaqeynayo malaayga khayrka banaanka yaala ka badda ku jira ka daran ka shaqeynaya aan dhahno waa jaaji iyo waa saas oo kii maxaan ku iraahdaa nin kabala aan socdo idinkuma jiree kii kabaha idintolaya aad dhahdaan waa saas iyo waa kabator war meeshaan ka adduunyadu meesha ka technology iyo dhan marka inaan meel fadhino oo wax loo soo sameeyay bas aan qaadano maan leenahay ama wax samaysayna qoragaan maanta meeshaan maraay intu maalo ninka geedka noo fadhiya oo kale biro jukiya ka soo bilaabay meeshaan uu gaaray laakiin annaga kaayni waa hormari laanahay inaan sharfno oon karaamayno oon dhan hore u soco waa fiican tahay muxuu ahay xaq ku dhiman lala galo lala qabto la qaato shaqadaas waa xirfade lala sameeyo wiilka aad inta ka dirto nuur dugla joog ku dhasho waalidkiis inta degay xamar jooga garaashka jooga ee lameeriga la laabaya baabuurta alxame baatlameeriga ka shaqeeyahay tumaal ma aha Soomaa kan yaambada noo sameeya masaarta noo sameeyana waxaan leenahay aqligu